Dhowaan, indhaha caalamka ayaa soo qabtay xasuuqyo iyo xadgudubyo aad u fara badan oo ka dhacay dunida, gaar ahaan dalka Falastiin. Waxaa la yaab noqotay in la isweydiiyana mudan shuruucdii iyo xeerarkii caalamiga ee jaamacadaha lagu baranayay ee mabaadi'diisu iyo xeerarkiisu ku xusnaayeen isla markaana tilmaamayay ilaalinta xuquuqaha, taasoo isku beddeshay mid fashilmay. Aan idin su'aale, ma mudan tahay qawaaniintaasi iyo xeerarkaasi in jaamacadaha lagu barto? Sidoo kale, waxaa raaligelin ka bixiyay macallimiin iyo barofesoro wax ka dhiga jaamacadaha waddanka Lugnaan, iyagoo ka raaligeliyay qawaaniintii iyo xeerarkii ay bari jireen ardayda. Haddaba, wax ka ogow shuruucdaasi iyo xeerarkaasi waxa ay yihiin. Sii sheer garee muuqaalkan, lana sii wadaag saaxiibadaada kugu dhow. Like-tana ha naga hilmaamin. Qarnigii 15aad waxaa soo bilaabmay dejinta sharciyada caalamiga international law, kaasoo ka koobnaa xeerar iyo halbeegyo guud ahaan loo aqoonsan yahay inay ku xiran yihiin dowladaha. Waxay dejiyeen habraacyo caadi ah iyo qaab fikir guud oo loogu talagalay dowladaha iyo qaybo badan oo kala duwan oo ay ku jiraan dagaalka, diblomaasiyadda, xiriirka, dhaqaalaha iyo xuquuqda aadanaha. Qarnigii 19aad, mabaadi'da aasaasiga ah ee sharciga caalamiga ah ee qaramada midoobay United Nations ayaa dejiyay horumarinta xuquuqul insaanka, xadida adag in xuquuq dowlad leedahay ay dowlad kale isticmaali karin si bareer ah. Waxaa sidoo kale si adag loo mamnuucay in dhul dowlad leedahay lagu haysto si bareer ah. Qarnigii 20aad, dagaalkii labaad, sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada International Humanitarian Law waa xeer la doonayo in lagu xadido saameynta iska hor imaadyada colaadaha hubaysan. Waxay soo bandhigtaa mas'uuliyadaha dowladaha iyo kooxaha hubaysan ee aan dowliga ahayn inta lagu jiro khilaafka hubaysan. Afarta mabaadi'da sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada: mamnuucidda dhibka aan loo baahnayn, mabda'a saami qaybsiga, fikradaha lagama maarmaanka ah, mabaadi'da aadanaha. Sidoo kale, xeerarka qaramada midoobay wuxuu dejinayaa mabaadi'da ugu waaweyn ee xiriirka caalamiga ah, laga bilaabo sinaanta madax-bannaanida ee dowladaha ilaa mamnuucidda adeegsiga xagga xiriirka caalamiga ah. Mabaadi'da nabadda, amniga, xuquuqda aadanaha, sareynta sharciga iyo horumarintiisa.